waan kuugu daraya arrinta hargeysan ka hadlo qoodha ay xirada iga wareeg idaaf arrinta hargeysan ka hadlaya in adeero walay karta horta gabar yar oo laga waayay reerkiina joog maxay la timaada ma taqaan wixiyadu xaloosh ku wada ma timaada mudanayaal iyo marwooyin marka hore waan islaamaya salaan kadib halkan waxa weeyaan jaamacadda fallaaraha cadceedda qaybteeda la yiraahdo dib u eegista waxa weeyaan jaamacadda fallaaraha cadceedda university qaybteeda dib u eegista oo aanu maanta doonayno inaanu ku falanqeyno in halkeera oo ay kaga dhigtay Soomaaliland waxa la yiri dadku waa taqaanuu suuxa dadku suuxa markuu suuxa kabriid baa la shidaa sanka loo saaraa waabay ku kacaan marar baa jirta dadku ay diidaan qofku indhamadoobaadba marka uu qofku indhamadoobaad uu diido waa loo foolnaqa madaxa biyo loogu shubaa marka nin halkan oo falaq leh oo gamcaha saala helay oo ayuu Soomaaliland ay kaga dhigtay inuu doonayno inuu jawaab yar siino ninka waxa la yiraahdaa gudoomiyaha jaamacadda indhacadaad gudoomiyaha waxaan ku sheegaynaa adigoo yar balaqle baad dhul badan jeeday waxaad jeeday Soomaaliland meelo badan oo kamid ah waxaad tiri South Sudan iyo Eritrea iyo waxay la hadleen Ethiopia Sudan iyo bay la hadleen saas ay tiraafka ku heleen marka irkay idinka jirtaa in ay tiraafashaan ilaa Soomaaliya la hadashaan waxa ku sheegaya mudane balaq horta marka hore South Sudan may ahayn dal jiri jiray oo intuu aran qaatay la aqoonsaday baad koobaad mar labaadka South Sudan may ahayn man dalkooda intay qabsadeen calan ka taagay oo Sudan wada iska mariyay taasi waa mid meel laba kala ma sinin annagu markii hore dawlad baanu ahayn la Soomaaliland horta qaatay calanka 60kii qaatay la itiraafay yani annaga kuula nimi annagu waxaan imika doonayso marka arkaynay iyo midnimada wanaageedu marka arkaynay waxaan imika ku dhaxwaalatay adigu annagu markaas aanu arkaynay asagaraweydi Eritrea soo qaadatay Eritrea markay dalka soo gashay ma jirin dal la yiraahdo Ethiopia oo dhisan oo ay soo galeen oo itiraaf weydiisteen madaxweynaha diyaarad buu ka raacay waxaan laba jabadood soo galay wadanka oo labada jabadood wadanka soo galay waxay heshiis ku ahaayeen markii dibadda ka soo dagaalamayeenba in ay is aqoonsadaan iyagu taana waa intaas kaaga qancinaya mudane balaq waxa tiri Soomaaliland waa meel yar cawlan loo buurado sibiro yar cawlan bay leeyihiin maxay hayaan oo wabiyaal iyo shabeelayaal iyo waxbaad ku faantay ma garanaysaa de maxaabad iga daba socota hadaad adigu wabiyaal leedahay mudane meelo badan bad qardaad duntay waxa si aan ku sheegayaa Soomaaliland khayraadka ay leedahay anigu sida dumarka halkan inta soo fadhiiso ku oran maayo waxaas ay leedahay balse Soomaaliland waxa ay tahay iyo sida isugu filan tahay horta heestan qabar baad ila yara dhigeysanaysaa in yar أنبعانا هايديو وانك عدو داويليو عطيبو بيقو فلاني أنبعانا هايديو وانك عدو داويليو عطيبو بيقو فلاني دايدان هودنكا ايبو قولي مايه عرفها هاي علم دايدان هودنكا ايبو قولي مايه عرفها هاي علم عود دار حدو جرو هاي عبن عود دار حدو جرو هاي عبن نقا هاي عبن السوق عدمينه هاي عبن نقا هاي عبن السوق عدمينه
عدك سار وددا هذا الهيب سوعلن عدك سار وددا هذا الهيب سوعلن way ku qancisay baan u malaynayaa in haddii eebeedankeeda leeyahay way ku qancisay baan u malaynayaa inantaa qamar halkaa waxaan ku dhaafayaa waxaan aanu leenahay Soomaaliland waxaan leedahay koonfur waxaan leedahay mawduuca labaad niyahow nin aad u balaqbalqalabaad waxaa tiri ina yar baa uuraysatayo caynkano reerkooda ka carartayo dabeedna waad nawaaninayso waxaad Soomaaliland ha uuraysaninoo ha soo garcaninoo wax noocaas waxaan kuu sheegayaa mudane abwaan dhiirane mid baan kuugu darayaa halkan waxaad ka tidhi nimayo ha soo uuraysanina ina yar baa reerkoodii ka baxsatay ina yar baa tinima saalina xagaa tagtay aroos baan tagay ciyaar baan tagay Soomaaliland way ka weyntahay waxa la yiraahdaa aroos baan tagay iyo ciyaar baan tagay laakiin waxaan kuu sheegayaa adigu waxa aad ka dhigan tahay gabadh anu weynay dee cilaajayd inuu ahayd mumweene gabadh baa magaalo soo dhex fadhiisatay siirooga toonka la isugu yimaado iyadoo aan mid mara ah haba yaraatee xidhnayn lugma inta meel dhigta bay tiri markay aragtay dadkii oo la yaaban magaalo hal kala xishoodo waxa la maxaa la kala xishoodo horta adigu maray xidho waxaan ku leeyahay horta Soomaaliland aad waanisid bee horta adigu maray xidhada qawane inta markaan soo dhaafo meelo badan ayaad niyahow jeeday waxa tiri shimir baad duulayo caynkano wuxuu dhulka soo fadhiisan maayo hal wada hashiyo waxaan kuu sheegayaa shimbirkiisa nin aad u bisaaradsaday ayaa dhulka lugeeyay meel buu ka lugeeyay meeshuu ku bisaaradsaday ninkaasi timu way ku baxeen way ku raamoobeen cidii way ku baxeen jirqin buu xidhay xataa lugaha looxu qoray oo jirlowna ku xidhay baa u kabaa markuu muddo bila soconayay buu geed ku nastay hada shimbir baa u timi waxay tiri wareedhe maxaan ku galay meeshan aad saan ku noqotay waa xagee wuxuu meelkaas ku bisaaradsado wallahi bisaarad xun baa heshaynayay wuxuu shimbirkii ku yiri alla niyahow haddii ilaahay nimco ku siiyo yara intaad xamilayd dabadna iska duulay ninkii boqor buu galay dhul haysta boqorkii adigu farsamooyin jira ayuu shaqo kaga helay shaqo markii uu ka helay waxaaba laga dhigay boqorku xigeen boqorkii uu yaadhay wuxuu ku yiri dalkanada haysta laakiin maqsinka ma aragtaa halka ka soo jeeda ha isku furin ma haysatid mana xukuntid ilateedana waan ku siiyey ninkii inantii markuu muddo qabay dhulkii isku dubaritay ayaa waxa dhacday meenada ka mid ah wuxuu inantii ku yiri horta aabbaha maqsinka wuxuu ku qarinaya waa maxay waxay warbada geli waariya bada geli iskaga tagay markii xoog soo wareegay wadana yiri na aabbaha wuxuu ku qarinaya maqsinka waa maxay wallahi waan jabinaya war ka joog bay uu jabiyay maxaa loogu tagay idihiisii raamihiisii kabiisii qoriga ah uskagiisii oo tash ku jira ee barkada laga soo kabiisii loo xaaro waa loo xiray taa ka baxbaa leeyahay horta Soomaaliya oo qani oo ladan Soomaaliya oo qani oo ladan oo midah ni wata tara la gashay adigoo cidii dhaadheer oo raamo kugu baxeen aynu gacanta kugu gelinay daldan oo Soomaaliya la yiraahdo maqsinka waxa ku jiray midnimadii wada qabsigii jacaylkii horumarkii watiin badan laga maslaxayay wala war burburin waadigi diiday jabiyay waa jabisay maqsinkii tii haddii aan raamahaagi dub ugu xidhnay oo kabahaagi loo xad dub lagu geliyay niyahow ma wanaagsana inaad aad u calaasha Soomaaliland waa dal jira waxaan saaxiib kugu soo gabagabeynayaa hadallada duulduulka ah waxaan kugu soo gabagabeynayaa bahalka leeyaha habar dugaaga ayaa biriiraa shiro arrimaha aan shir qabsano way meel biyeelay nooga balli bay yimaadeen balligii haddii waxaan ku uri hareeraha la iska soo tubay bahalka toorka leeyaha ka dhex kacay wallahi ma ka cid ka cabi mayso baaba la yaaba iyadoo saa loo eegiyo ayaa waxa dhacday geed halkan ku artamay geesihiiba mid ka qabsaday isagoo la garif loo isla kala bax ayaa maroodiba soo dul taagay niyahow ku xaaray bahalkii xaarkii baa qariyay maroodigu halkiiba ku dhintay sakara la socotay ayaa aragtay sida loo dilay ninkii odayga ahaa in xaar lagu dilay wixii dhacay bay arkaysay way carartay ab sakara shirisay waxay ninkii aad torsaas u dhintay xaar baa lagu dilay waxay yeelaysan sakaaroy xaarad leedahay uu kala duulduulan meel ku ururay mid walayba
maalintu maroodi qariya xaarkeenaasi ayaan doonayaa inuu maroodigoo fadhiya buudka kaga shubno aynu ku aasno wariya ilaahay yaqaan maroodi baa xaar intoo sakaar qarinaya dadku waxay dhaahaan waxay u aasaysaa wallahi aasimaysa godob bay u aasaysaa waxay doonaysaa xaarkaasi markuu bato inay maroodigoo meel fadhiya guudka kaga shubto ay ku qariso oo ku dhinto balse sakaarada waxa ka maqan xaar sakaaran ka soo la biiriyo inaanu maroodi qarinayn adigana saaxiib waxa ka qarsoon oo ka maqan Somaliland haddaad tuur isu yeeshay haddaad tirbiica isu yeeshay haddaad filgaadootiya haddaad haytantiya haddaad buuro soo kortaba saaxiib qarsoomi mayno oo waanu ka يعني باورka يعني ilaahay uu nasiiyay cadceeday Somaliland maanta sida cadceed oo muuqata marka waxaan ku oran lahaa niyahow afhamayay ka tagin haddaad isleedahay Soomaali iyo isku dir dadka Somaliland war Soomaalinimada anaga ka jecel waa dadka Soomaaliyeed anaga ka jecel adigu afka baarkiisa waxyaabo badan oo ku baratay baad ka dhex doonaysaa laakiin anagu waxaad soo qaadatay waxaad maama maliyun baan siiyay shahaadad warika maama maliyun shahaadad siiyay waxaad tiri oo aan aad iyo aad horta waxaan idin sheegayaa marka hore jaamacadda Fallaara Cadceedda University qaybteeda dubu eegista waxa ay jeexjeexday isla markaana ay googoysay shahaadadaad siisay maama maliyun iyada oo halkan kaaga soo jeesay cambaareen xoog leh waxaanu cambaaraynaynaa hadalkaaga ku socday ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee odayga ah ee sharafta leh ee gurigiisii la weeraray ee rasaas lagu riday ee mudnaa inaad la calaasho ee aad tiri in ina walana in rasaasi iyo walana weeraray aad u bixisay qaanwaanu kugu cambaaraynaa Cabdiraxmaan Cabdishakuurna waxaanu leenahay mudane xaal qaado adigana waxaan ku leeyahay qaybaha dambe ee jaamacadda ayaanu faallooyinkaaga ku geli doonaa Somaliland xaar sakaar qarin maaye waxba ha u biirin waxaan kaaga tagayaa saaxiib halkan waxa kala hadlayay horta marka hore gudoomiyaha jaamacadda Fallaara Cadceedda University waxaan ku leeyahay saaxiib gudoomiyaha dhacdaad see you again maratayn waxaan kugu dhaafayaa heesta macaan ee ay qaadayso nimca degan goodbye abalama kade garode ayagu waa geesihi agaygiya dadku markuu gomanaa nafta geedka iyo garka ugu xidho waxa ay gashay gabadhimaadu tahay u garanaya abalama kade garode ayagu waa geesihi agaygiya dadku markuu gomanaa nafta geedka iyo garka ugu xidho nafta geedka iyo garka ugu xidho waxa ay gashay gabadhimaadu tahay u garanaya abalama kade garode ayagu waa geesihi agaygiya dadku markuu gomanaa nafta geedka iyo garka ugu xidho waxa ay gashay gabadhimaadu tahay u garanaya galadiyo xarfiyo gumariyo ka jecel guuyo adoon libiga hasriyo garwaa ka jira kan gaambiyaha guusha heliyo galadiyo xarfiyo gumariyo ka jecel guuyo adoon libiga hasriyo garwaa ka jira
sultan gabka cidi gashay gardarrada dhacdaba gooriyo ayaankeen lawaaba iyo golo iyo arda garta muugina qowmad gacaalaho dhaqanku u leexiyo odaygu urtiyo garadiyo sultan gabka cidi gashay gardarrada dhacdaba gooriyo ayaankeen lawaaba iyo golo iyo arda garta muugina qowmad gacaalaho galadiyo xornimo gumariyo ka jecel guuyo adduun libiga hasibiyo garwaa ka jira gaangaambiyaha guushan heliya galadiyo xornimo gumariyo ka jecel guuyo adduun libiga hasibiyo garwaa ka jira gabashada xullagu u shaakaliyo gumariyo ka jecel guuyo adduun libiga hasibiyo garwaa ka jira